al-shabaab mar walba waxay ka faa'iideystaan qaybsanaanshaha dowladda dhexdeeda iyo khilaafka dowladda dhexdeeda ah iyo dowladda iyo maamul goboleedyada runtii intii al-shabaab ay soo jirta may xoogeysanaysay waxay ku xoogsanaysay markii khilaaf u yimaado dowladda dhexdeeda iyaguna waa xoogsanayeen maxaa yeelay dhexdooda khilaaf ma laha waa dhismayeen marka waxa ugu horeeyaan sameeyeen waxay tahay inaan dowladda ka yareeno ama aan ka tirtirno wax la yiraahdo khilaaf haddii ay jirto wax kala arki doonaansho waxa in lagu xaliyo dowladda dhexdeeda laakiin waxaan ku rajo weynahay inaba ha yaraatee wax dhibaato ah in dowladda dhexdeeda ka dhex imaan annagoo ka faa'iideysanayna marxaladii la soo maray iyo wixii naga horreeyay tan labaad waa inaan dhisno ciidanka qaranka inaan dhisno ciidanka inaan isku dhafno training iyo tababar siino qalabkii u baahan inaan siino waxa ugu muhiimsan oo aan mar walba ka hadalnaa mushaharaadkooda inaan siino iyo noloshoodan ogaano ciidamada si niyadooda ay kor ugu kacdo waxa intaas weheliya oo kale inaan isku xirno shacabka iyo ciidamada qalabka sida inaan isku xirno oo ay ciidamadu dareemaan inay u dagaalayaan ama ay difaacayaan dalkooda iyagoo garab ka haysta shacabkooda socdaalkayga wuxuu ahaa socdaal ka mid ah qayb ka ah socdaalo badan aan ku tagi doono dowlad goboleedyada oo dee aan wada tashi iyo aan lahaanayno iyo ka warqab iyo inaan kala xog qaadano iyo inaan ogaado xaaladooda iyo sida tahay iyo sidaan wada shaqayn karno iyo culaysyada haysta iyo sidaan uga caawin karno marka runtii socdaalkan waa socdaalkii ugu horreeyay oo aan doonayo inaan ku tago qaybo badan oo kala duwan dalka dowlad goboleedyada waxa ay qorshaysan inaan tago Puntland waxa ay qorshaysan inaan tago Galmudug waxa ay qorshaysan inaan tago Hirshabelle insha Allah waana ku noqon doonaa haddii la yiraahdo